wariye Axmed Sakaaro oo kamid ah suxufiyiinta ka howlgala gobolka Togdheer ayaa maanta lagu qaaday dagaal gacan ka hadal ah oo qorshaysnaa isla markaasna lagu gaarsiiyay dhaawacyo halis ah. Waa kan wariye Axmed Sakaaro oo kula kulanay cisbitaalka lagu dabiibay oo ka warbixiyay sida ay wax ugu dhaceen iyo ciidii ka dambeysay weerarkiisa. Saaka mardhow anigoo ka soo baxay handoor birintii ayaa laba nin oo guradiyo tuulisita aan ku warhelay dabadeedna madaxayga la dhaceen markaan wareerayna alaabtaydii buuggeygii baanka laabtoogii rikoodhadii wixiiba way qaateen. gaari baa markii dambe qaaday. ma garan karo sababta keentay dilkan qorshaysan ee gaadmada, laakiin waxaan ogahay aan garan karayaa ilaa 8 hanjabaadood ilaa 9 hanjabaadood oo qaarna madaxda dawladda ka socdaan, qaarna ay leeyihiin maasiijo soo direen kooxaha argagixisay yihiin ayuun baan garan karaa. tani waxay ku tusaysaa dawladnaanta dalka ka jirta. waxaan caddeeyey oo aan CID la socodsiiyey kooxiya ii soo diray maasiijyada welina tallaabo kama qaadin iyada iyo barakaad muddo 20 cashaaba laga joogaa markii kooxo kale oo argagixisay ay maasiijyo soo direen. maxay haytay ilaa imka ilaa 4-5 habeen oo dhanna hanjabaado iyo ayaa soconayay. waxaan ka garan karaa dadka ay hanjabaadahaasi u hilinayaan ee waan ku dilaynaa. kooxaha ila soo hadlay waxay leeyihiin maayir umraad baan la soo diray waan ku dilaynaa. intaas baan xasuusanahay. waxaan ka garan karo insha Allah tanina waa bartilmaameed dad dee soconayay ka mid tahay suxufiyiinta maxay tahay dhibaatooyinka soo gaaraysa hawl maalmeedkeeda aad baan dee ma garanaysa xaaladaydu iminka oo wareersanahay. 2 meelood baan marinay inay jaban yihiin madaxa ma socon karayo, laakiin ma joogsanayso shaqada la haya. haddii cirka uu baxo nin kasta oo maamuli waa laga sheegayaa dhaliishiisa iyo waxa uu ummadda ku samaynayo, mana joojinayno. sidaas baan rajaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim. saxaafadda waxaan ugu baaqayaa inaanay hawl maalmeedkooda ka caysiyo joojin, alaabna laga qaado iyo dhacna lagu sameeyo iyo dilmana lagu sameeyo toon ku joojinayno. ninkii uu xaday waan sheegaynaa kali waan u tilmaamaynaa bulshada reer Soomaaliland. 2 gaari baa qaaday, laakiin waxa la sheegayaa maxay tahay in family ahaan dadka qaar weli ma hurdan, laakiin gaarigii qaaday baan weli dabagalkiisii ugu jira insha Allah. wajigooda ma garanayo ninku cabaar buu halkaa dabadeeda soo socday, ma garanaynin inuu dhibaatay wado. alaabtaydii maca gaarigii waa lagu qaatay, laabtoogeygii iyo buug baankaygii iyo rikoodhadeydii iyo gudmatidanaya. markii buurka layla dhacay waan gagabay. bur weyn buu ahaa, burkina ku jajabay waan gagabay. wariyaha kale Shaafici baa ila socday, isagana nabar dhaawac baa la gaarsiiyey markuu sidii ka qabo gacan buu isaguna wax ka qabay. maaha markii u horeysay gacan ka hadal qorshaysan oo dhaawacyo loo geysto lagula kaco wariyahani iyo wariyaal kale oo ka tirsan gobolka Togdheer. waa Khadar Cabdirasaaq Salebaan, Khadar Hanad, shabakada caalamiga ee Harwanaag News, magaalada